السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan naga daawanaysaan ajmal degan muuqaalkan insha Allah waxaan idinku soo gudbinayaa dhul ku yaala markaska ceelasha biyaha. waxaan u soo gudbiyay oo aan hadda u soo bandhigayaan waxay tahay dad badan ay weydiiyay markaska dhul nooga soo raadi ama dhul banaan ee markaska aan rabnaa. dadka baan isleeyahay ha arkaan ha ka faa'iideystaan intiina kalena qofkii fursadan awoodi kara ama ka faa'iideysan karo inuu ka faa'iideysto baan idinku soo gudbinayaa. meeshan hadda taaganahay waxa ku jira 8 boos waxay ku yaalaan markaska ama dhabarka dambe ee caana geela ama xirada geelna uu ku xareysan yahay, lo'na way ku xareysan tahay. jaayga ay saaran tahay waan maraynaa insha Allah lugan ku tagaa. dhabarkeeda dambe dhulkan markasku ka tirsan yahay, laakiin meeshaas ay ku jiraan geela iyo lo'da ay ku xareysan yihiin oo jaayga saaran dhulka dambeeyo waa dhinaca markaska ma xigo, dhinaca caana geelu soo xiga. waa 8 boos walba kamid ah cabirkiisu waa 25 laba jidna inta ka maraa, jidna dhinacan kale uu ka maraa, jidna kadaal uu ka maraa. dhulka hadda meeshaan saa arkaysaan lama degano, laakiin dhulkan deegaan waa laga dhigan karaa oo wuxuu leeyahay biyo iyo koronto intaba, wuxuuna u dhow yahay jaaygan waan idin sii tusinayaa. waan sii maraynaa jaayga. meeshaan aan taaganahay laftirkeeda dhinacay deegaan ka tahay oo laga degan yahay. hadda meeshaan geedaa ka baxaya, dhir bay leedahay, waa dhulka banaan. qiimaha hadda uu joogo sababta uu ku joogana waa guryo la'aanta ama deegaankan ku badnayn, ama haddii guryo laga dhiso la dego waa qaali bay noqonaysaa. hadda meesha saa arkaysaan oo dhan waa dhul la degan yahay, dhinacyadan aa uga jeedaan. halkii boos oo ka mid ah 8 boos waxaa la iibinayaa $6,000. calaa boos wuxuu joogaa 6,000. wuxuu ku yaalaa markaska ceelasha biyaha dhabarka dambe ee xerada geela ama xerada lo'da taarabtid leh ee jaayga saaran. qof walba oo markaska imaaday ama yaqaano uu soo maraa xerada geela dhabarkeeda waxaa ku yaala 8 boos ee iiba. boos walba oo kamid ah waxaa la iibinayaa $6,000. meeshu biyana way leedahay, korontona way leedahay. korontada waad aragtaan fiilooyinkeeda, dhinacaas waa deegaan, waa la degan yahay. 8 boos ee aan idin dulgeeyana waa kuwa hadda aan muuqaalka ka bilaabay, horaan u soo baxay. waxaan rabaa inaan idin tusiyo xerada geela iyo jaayga aan muuqaalkaan idinku tusiyo. isla markaska gudihiisa dhinaca kale caramadowga ah dhul asagana raqiis ah baan idin tusinayaa oo deegaanka dhexdiisa ku yaala. jidkan waa aragtaan halkaas guriga ku yaala, anaga dhankaana u soo baxayna waa laamiga intuu naga xiga. aagaan oo dhan waa deegaan. dhulkan 6,000 ah, dhulka ka horeeyo dhan waa la degan yahay. asagu wuu ka qaalisan yahay kan hadda aan idin sheegayo. qofkii hadda maal kasta ama lacagtiisa geliyo way u baranaysaa, sidoo kale qofkii rabana deegaan wuu ka dhigan karaa. wadadan ku soconaa insha Allah ilaa aan ka tago jaayga markaska loo aado ee xerageela hormara. meeshaan hadda markaska la leeyahay ceelasha biyaha waxay u jirtaa 7 kiiloomitir, laakiin waa dhul deegaan ah oo qofku kuma qasban inuu ceelasha biyaha wax ka doonto. wuxuu leeyahay suuq, iskuulo iyo madaaris iyo jaamacado iyo wixii loo baahdo. nolosha inta daruuriga ah waa meel laga heli karo. sidoo kalena dhismaheedu uu socdaa, wuu fidayaa, dhan walbay ka socotaa. jihada markaska kadaashiisa masaajidka wixii ka dambeeya, wixii ka soo horeeyo jaayga wixii loo imaado, dhan walba dhismaa ka socota. meesha xerageela aan idin oranayo waa derbigan bulkeetiga ah wareegsan, asagaa saaran laamiga. waxaa ku xareysan lo iyo geel. waa derbigaas dheer ee jaayga ku tagaya, asagaan tagaynaa. waana aragtaan oo meesha muuqaalka aan ka soo bilaabay kaliya muuqaalkeedaan idin tusiyey, waan idinkaga warbixiyey, horeyna waan u soo baxay. qofku waa inuu wixii jihada ay ka jiraan uu fahmi karo. sidoo kale waa inuu qiyaas qaadan karo. dhulkan markii lagu yiraahdo maanta 6,000 waa dhulka ugu soo dhow qiimaha uu marayo, amaba meesha ugu soo dhow deegaankeeda heerka uu gaarsiisan yahay. laakiin ma ahan in
lagaaga turjumo ama lagaaga warbixiyo meel haddana aan lagu tusinin dhinacyadeeda in lagu yiraahdo meeshaana beeca haddaan meeshii in yiraahdo waa beec ee aan ka tago waxba miinaan ka fahmi lahayn laakiin hadda waxaan malaynayaa fikrad buuxda ka haysataan waayo jaaygi baan idin keenay oo waxa hadda aan taaganahay waa jaaygi markaska loo aadayay ama xerada geela ee markaska jihada uu xiga dhulka ama dhinaca uu xigana xeradan geela dhabarkeeda dambe ama gadaasheeda meeshaan ka imaaday buu xigaa markaskana wuxuu xigaa meeshaan horteena ah markaska waa dhanka halka baa loo aadaa jaaygaas loo sii aadayaa markaska asagana waan tagaynaa waa arkaynaa insha Allah haddana waxaan malaynayaa macluumaad buuxdo inaad ka haysataan dhinacan ama jihadan aan idin tusinayay 8 boos waa boosas iib ah jaariskoodu wuu furan yahay qofka u baahan nambarka meesha ku qoran buu nagala soo xiriiri karaa haddii Ilaahay uu qadaro haddii wax laga riixi karo oo wax laga dhimi karo beec markii la sheegay sidiisa iga dhimo imaada way dhici kartaa in wax la dhimo inay diidaan way dhici kartaa laakiin anigu mar walba waxaan isku dayayaa dadka wax qaadanaya ee wax iibsanaya in aan uga iibino ama aan iraahdaha looga iibiyo qiimo bari ee wax ka heli kara waayo qofkaani wuxuu rabaa inuu meeshan wax ka soo saaro asagaba wuxuu u iibsanayaa inuu dhulkan wax ka raadiyo haddii marka hadda la saaro wixii uu bari ka raadin lahaa waa dhibaato muuqaalka jaayga waa jaaygan aad arki kartaan ilaa ceelasha biyaha jaaygan aad tago goolad yar baa ku jira gooladka marka laga leexdo cala dul ceelasha u tagaa 7 kiiloomitir oo dhulkan ceelasha u jira markaskana waa meeshaan naga xakayso oo dhankeena kala xigta ama wixii aagaas loo aado waa markaska jaaygaana hore loo raacaya danna markaska waa joogtaa oo ku dhow yahay mar hadda inta joogtid sidoo kale deegaankan waxaa ka shaqeeya amaba BL oo ah gawaaridan hadda aad arkaysaan oo idin muuqata baa ka shaqeeyaan dadka waxay ka qaadaan markaska masaajidka agtiisa waxay ku leeyihiin meel busteejo ah busteejada baa dadka laga qaadaa kadibna waxaa la geeyaa ceelasha biyaha lacag yarayna ku tagaan anigu hadda 4 iyo 3 iyo 5 waxay tahay ma garanayo laakiin shini Soomaali yar lagu tagaa waxaan imaaday markaska gudihiisa waad aragtaan waa wada deegaan waa dhul wada degan yahay dhinac walba laga degan yahay meeshaan hadda aad taaganahay waa caracad Ilaahay awoodiisa tusaale weyn uga qaado halkan aad taaganahay meeshaan hadda aad taaganahay waa caracad meeshaan idin muuqata ee dhirta ama geedhuudka uu ka baxayana waa caramadow labada dhul caracadka iyo caramadowga markaska saasay isku saarayeen dhulkan hadda waad aragtaan dhulka ka dambeeyana waad arki kartaan dhulka ka dambeeyo dhan waa caramadow beerna waa ka dhigan kartaa deegaanna waa ka dhigan kartaa kan uu ka sokeeya ama uu uga dhow yahay markaska kii hore dhulkan hadda aan idin tusinayo iyo kan muuqaalka bilowgiisa idin soo tusiyay waxaa markaska u dhow kan aan idin tusinayo waayo waa kan masjidku waa ka dabaqa dheer guryihii masaajidka ay gaarkiisa ahaa waa kuwaana sidoo kale qaybta caramadowga waatan oo muuqaalka hadda intaan arkaysan waa caramadow wuxuu guryaha ka dambeeyana waa caracad markaska masaajidkana waa kan soo zoom gareeyay waxba idin ma jiro lug baa lagu tagi karaa uma baahna in gaari loo raaco qofka meesha joogo uu lugeyn karaa caramadowgu ilaa gadaalay sii jirtaa dhul Ilaahay weeyaan dhul aad u balaaran u weyn waaye oo qofka rabo uu mashruuc beereed ka samaysan karo wax walba lagu abuuri karo hadda mesela qofka meeshaan dhowr boos ka hela jaanis iyo fursad u haya uu dhir macnaha ku abuuro qudaar iyo wax walba wax fiican baa ka soo galaya sababtoo ah intuusan u baahnayn inuu ceelasha geeyo ama xamar geeyo meeshaan uu ka iibsan karaa waayo meeshaan waa dhul deegaanuhu Soomaaliya oo dhan ay degan tahay wixii beertiisa uga soo baxo suuqa hadduu inta xarun yar ka furto uu geysto uu dhawal faa'iidaya fursadaha ganacsi ama shaqo maanta Muqdisho ka banaan ama laga heli karo way yartaa meel laga helo
muqdisho adigoon shaqaalanimo ilaahay uusan ku badinin oo aan shaqaale inaa noqoto aad u baahanin baad iska samaysan kartaa wax yar ee aad fikradaada ah kadibna waad ku faa'iideysaa dhulkan hadda geedkan inuu ka baxo xaq muusan u lahayn waayo waa dhul beereed qaybta waliba waxaan joognaa qaybtan caramadow saa'ida ma aha waa normal oo dhexdhexaad laakiin waxaan hadda aadaynaa ama aan idin tusinayaa caramadowga meeshay naga xigto wixii geedahan ka dambeeyo ama dhulkaas madoob oo dhan waa caramadow asala oo la yaqaan beerna qaban karta qofkuna dooraba deegaan uu ka dhigan karo qofka hadduu gurigiisa shamiteysto dee carada isma arkayaan almuhim waxaan dhex joogaa hadda oo aan taaganahay dhulkaan idin oranayo waa iib meeshaan waxaa ku yaala deegaanka intaanu kuu jiraa lama oranayo deegaanka dhexdiisaa ku jirnaa waayo waan dhex taagannahay waxaa ku jira 2 boos oo cabirkoodu uu yahay 20 lagu dhuftay 15 boos walba oo kamid waxaa la iibinayaa $4,500 waa qiimo aad u jaban ee raqiis waliba saa'id ah sababtoo ah deegaankina waad aragtaan meeshuna waa meel deegaan ah caramadowga darteed buu qiimahaas u noqdo dhulka hadda deegaanka xoogaa ka fogaa jaayga dhabarkiisa dambe ahaa xerageela 6,000 ahaa calaaboos kanna waxaa lagu oranayaa waa 4,500 kanaana markaska u dhow oo markaska waa kan kuu muuqdo oo aad u lugeyn karto sababta loo yiri marka waa un kaliya inuu caramadowga marka dadaan fahansaneyn dadka fahansanna jaanis intuu arkaan hore ka qaataan dadkan fahansanayna caramadow ma raba yiraahdaan carado ama madowbaato ama ha cadaato guri hadaad dhisanayso waxaad u dhisanaysaa si hagar la'aan dabcan hadaad qarashkeeda haysato labada boos halkaan ku jiraan hadal badan haan ma buuxiyo waa 2 boos oo iib ah ku yaala markaska ceelasha biyaha markaska wuxuu u jiraa ceelasha biyaha 7 kilomitir laakiin waa dhul deegaan ah biyo iyo koronto iyo masaajido madaaris iskuulo jaamacado wax walba leh iyo suuqyo Soomaali maxamed oo dhan ay degan tahay hal qolo degan aynan jirinin labadan boos waa qaybta caramadowga guryaha kale intaas u jiraan calaaboos waxaa la iibinayaa $4,500 labadoodaba waxay noqonayaan $9,000 oo kaliya labadooda bis baa waxay noqonayaan $9,000 laba boos oo cabirkoodu yahay 25 ku yaala markaska deegaan wax walba u dhameystiran yihiin aan kaaga baahnayn markaska inaad gaari u raacdo aad kul u lugeyn karto waliba caramadowga saa'idka ahaa shishe aan ahayn qaybtan afafka hore caracadka dariska la ah qiimahaana lagu iibinayo waxaan u arkaa inay tahay fursad iyo jaanis ninka awoodo uu ka faa'iideysan karo qofka iga go'anta inuu ka faa'iideystana numberkan uu naga soo wici karo noo sheegi karo sida uu rabo annagana aan u dhameynayno